waxay leedahay wiil buu xidhi naga dhaxeeyey muddo dheer wuxuu ii sheegay bay tiri inaanu reer lahayn laakiin markii dambe waxa soo baxday inuu xaas kale leeyahay oo been buu ii sheegay kadibna xidhiidhkii waan ka goostay laakiin muddadii xidhiidhku noo socday lacag badan baan ka qabay bay tiri ilaa $7,000 gaadhaysa marka lacagtaas miyaa la igu leeyahay waan u celinayaa mise waa calayhaa lacagtaasi qof kasta oo markaa sabab daraaddeed wax loo siiyo sababtii haddii la waayo iyo wixii laga sugayey wixiisi waa loo celinayaa marka inantaasi haddii ay welibana xaggeeda ka timid weeye culimada qayb ka mid ah waxay leeyihin ka noqoshada hadday xaggiisa ka timid waxba loo celin maayo laakiin imika waxaad sheegtay inuu wax ku siiyo 7,000 aad ka qabto welibana adigu guurkii aad ka noqotay sababta aad kaga noqotayna sabab lagaga noqon kara ma ahayn 7diisii kun waad ugu shubaysaa halkaa waxa quraanjay ku quusa ah hablahan iska shaxaadayaasha ah odhanaya mobile iibi sheekada aan sii wadno ama sidii iibi ama ficiis iibi qaar baaba dee gaari ka xasiliye oo imika 7 kun dee gaari way goynayaan laakiin haddii la yidhaahdo inankii aad lahaa sawdeed guurka kaga noqotay wixii aad ka qaadatay u celi sheekadaasi way soo afjarmaysa waana sida sharciga ah saasaa culimmadu badan yihiin qofka isagaa wixiisii loo celinayo waxa taa kaa fursan kara inaad ama dib ugu noqoto hawshii sii wadaan guurkii xalaasha ahaa ama aad muslaxato tiraa ma hayee dee fadlan iga cafi marka waa nasiibka hadduu kaa cafiyo